dhakhtarkani waxa uu dilay in ka badan 250 bukaan kuwaasi oo lagu keenay inuu ka daaweeyo xanuuno kala duwan oo haya laakiin aakhirkii waxa ay sababsadeen gacantiisa. Ninkan ka hadlaya waa Harold Shimman waxa uu dhashay 16 January sanadii 1946 waxa uu ku dhashay dalka Ingiriiska. Shimman wuxuu ku soo barbaaray nolol hoose oo ku gadaaman yihiin faqri iyo dhibaatooyin kale. Markii uu yaraa wuxuu ahaa qof aad iyo aad u wanaagsan halka noloshiisu ka qalloocatana waa markii hooyadiis oo muddo la xanuunsaneed cudurka kansarka ay u geeriyootay. Shimman wuxuu ahaa ilaaliyaha hooyadiis waxa uuna ahaa shakhsiga ugu dhow ee marba la joogo hooyadiis waxa uuna si taxaddar leh ugu fiirsan jiray daawooyinka la siinayo hooyadiis kuwaas oo dhaqaatiirtu u isticmaali jireen qandho jabis ahaan. Ugu dambeyntii hooyadiis waxa ay geeriyootay sanadii 1963 iyadoo u geeriyootay xanuun kansarka oo muddo dheer hayay. Waqtigaas oo Shimman uu jiray da'da 17 sano waxay kadib dhimashadii hooyadiis Shimman waxa uu dhameeyay dugsiga sare waxa uuna sii watay waxbarashadiisa isagoo ku biiray kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Leeds. Intaas kadib xilliga uu ku guda jiray barashada jaamacadda waxa uu bilaabay Shimman inuu isticmaalo cirbada loo yaqaan morphine oo kamid ah cirbadihii dhaqaatiirtu u isticmaali jireen hooyadiis inay ku ilowsiyaan xanuunka faraha badan ee hayay. Shimman waxa uu isticmaalay cirbadan inuu tijaabiyo wixii ay soo martay hooyadiis xilliga ay qaadanaysay daawada kansarka. Intaas kadib waxa uu qabatay cirbadan oo qaab tijaabo u qaadanayay waxa uuna ka guuray cirbadii hore ee loo yaqaan morphine-ta isagoona u guuray cirbada loo yaqaan Demerol sidoo kalena la dhaho Betadine. Sanadii 1977 Shimman wuxuu shaqo dhakhtarnimo ka helay mid kamid ah magaalooyin ku yaala Ingiriiska halkaas oo ka bilaabay shaqadiisa dhakhtarnimo wuxuuna ahaa mid kamid ah dhaqaatiirta ugu fiican sidoo kalena dadku ugu jecel yihiin. Taasina waxay keentay inuu kasbado macaamiil aad iyo aad u fara badan laakiin sanado yar kadib sanadii 1998 wax walba way isbedeleen kadib markii mid kamid ah bukaanadiisa oo haweeney 80 jir ah laga helay gurigeeda iyada oo meyd ah saacado yar kadib markii uu la kulmay Shimman. Qoyska haweeneydan ayaa aad iyo aad u walwalay geerida lama filaanka ah ee ku timid iyagoo markii hore ogaa caafimaad qabkeeda waxaana guriga laga helay dardaaran ay qortay kaasi ay ku sheegaysay inay Shimman siiday 400,000 pound taasi oo la yaab ku noqotay qoyska waxa ayna wargeliyeen booliiska ayaa Shimman soo qabtay 7 September sanadii 1998 waana la xiray oo waxa la dhigay jeelka. Intii dacwadiisa ay socotay Shimman hal mar ma uusan qiran inuu galay dambigaas ilaa baariyaasha ay soo ogaadeen inuu sidoo kale dilay 15 qof kuwaasi oo kamid ahaa dadkii ku xirnaa xarunta caafimaadka ee uu ka howlgeli jiray. Waxa sidoo kale soo baxday in Shimman dadku u tagi jireen iyagoo cagahooda ku socda halka la soo celi jiray iyagoo oo geeriyooday. Sidoo kale baariyaasha kiiska ayaa soo ogaaday in Shimman uu bukaanadiisa sii jiray cirbada loo yaqaan Diamorphine cirbadani oo ah mid aad iyo aad khatar u ah wadamada caalamka qaarkoodna mamnuuc ka ah in dalkooda la soo galiyo sida Mareykanka oo hadii lagu qabto aad mudan karto ciqaab aad iyo aad u fara badan. Cirbadan ayaa waxay dhaqaatiirtu u isticmaalaan inay bukaanada siiyaan xilliyada ay ku jiraan xaaladaha arag gaar ahaan xanuunka daran si loo ilowsiyo xanuunkaas haya iyadoo si taxaddar leh loo adeegsado. Baaritaanka oo sii socday ayaa sanadii 2002 sano kadib markii uu fashilmay Shimman waxa lagu ogaaday in daawooyinka uu adeegsaday ay galaafteen nolosha in ka badan 250 qof waxaana lagu xukumay Shimman xabsi daa'in 4 sano kadib markii lagu xukumay xabsi daa'inka isaga ayaa isdaldalay waxaana halkaas ku soo dhamaaday noloshiisii. Waxaan ka codsanayaa hadii aad fiidiyowan daawatay inaad channelka subscribe saartid sidoo kalena page-kan Caarad News aad like saartid mahadsanid.